Okay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halkani waa Somali Trading Community. Waxay noo bilowday insha Allah course-keeni binary and digital option-ka aynu kaga hadlaynay. Waxaynu insha Allah ka hadli doonaa market structure-ka. Suuqan saddex shay baa muhiim ah. Saddex shay muhiimkii waxa weeye runtii course-keenana aynu doonaynay inaynu xooga ku saarno ama concept-kiisa ugu badan ba runtii waqtiga ugu badan naga qaadan doonaa waa directional bias wax loo yaqaano. Directional bias waxay tahay macna qofku inuu qeexi karayo horta suuqana xaquu socdaa because suuqa kor u socona fursad baa inuu ka raadinaynaa suuqa hoos socona fursad sala insha Allah ka raadin doonaa laba entry wax loo yaqaano oo entry waxa tahay trade kan bartaan ka galaa taasina waa muhiim in qofku garanayo saddex waa timing wax loo yaqaano insha Allah course-keena ku dul istaagi doonaayo goormaan xabada rida ama goormaan trade ka galaana insha Allah waan isla arki doonaa market structure waa qaab dhismeedka suuqa maxaa noqon karaya qaab dhismeedka suuqa waxa noqonaya sidii suuqu u dhismayay suuqa goorta la trade garanayo sida macna la iskaga iyo waxa soo dhan uptrend baynu insha Allah ku horeyn doonaa uptrend rules suuqa uptrend ka maxaa laga doonayaa waxaynu leenahay suuq kasta oo uptrend ah waxa uu leeyahay laba shardi oo kala ah kow inuu sameysanayo higher high and higher low macna inuu suuqaasi higher high iyo higher low sameysanayo oo looga jeedo inuu suuqaasi sameysanayo waxa loo yaqaano hadda suuqa hadda sidaad arkaysa muxuu sameysanayaa higher high ga maxaa ka sareeya this high ga maxaa ka sareeya high kan maxaa ka sareeya high isla higher high-yadaas waxa hoos imanaya higher low waa shardi waa isku hal shardi waa inuu higher high iyo higher low sameysanayo laba shardiga labaad waa inuu meesha ka saaray suuqii ka horeeyay oo ah kan macna suuqan de suuq baa ka horeyn jiray meesha mari jiro downtrend ahaan jiray waa inuu suuqii meesha ka soo saaro higher lowyadiisii ama lower high-yadiisii uu soo cunay meesha ka soo saaray inta markaad ka hesho suuqa cidi kugula murmi karaysa inuu uptrend yahay laakiin maxaa la diiday waxa la diiday suuq san intaad ka soo qabsantaa suuqan waa uptrend suuqan waa downtrend maxaad ku cadeynaysaa hadduu qofku ku dhaho suuqaas waa downtrend ama waa uptrend waxaad leedahay walaalow suuqa uptrendkii shuruud buu leeyahay shuruudiisii tus suuqani downtrendkii shuruud buu leeyahay shuruudiisii tus haddaad aqoon baranayso sidaas laga doonaya inay rules u leedahay laakiin lama doonayo waxa inay iska noqdaan ha iska jeeda uun okay aynu ka socono tusaale aynu insha Allah isleegi doonaa tusaalahan hadda waxaad arkaysaa suuqani waa uptrend waa sawir aynu qaadnay maxaad arkaysaa waa uptrend maxaad ku cadeynaysaa inuu uptrend yahay waxaan ku cadeynayaa baad leedahay inuu suuqani uptrend yahay dee higher high buu sameysanaya high-gan maxaa ka sareeya high-gan kan maxaa ka sareeya high-gan kan maxaa ka sareeya high-gan sidoo kale muxuu sameysanayaa higher low oo higher low waxaa looga jeedaa inuu soo noqdo nasto bullback kaco uu nasto kaco uu nasto kaco uu nasto kaco uu nasto sidoo kale suuqan waa inuu suuqii ka horreeyay meesha ka saaro BOS waxaa looga jeedaa waa break of structure kan buu jabiyo suuqii downtrend-ka ka horreeyay buu meesha ka saaray intaa haddaad ka hesho suuqaasi waa uptrend okay maxaa marka lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa impulsive correction impulsive oo maxaa tahay impulsive runtii waxay noqonaysaa waa dhaqaaqa directionka suuqa u jeeda pullback ama correctionna waa dhaqaaqan ka soo horjeeda waa impulsive iyo correction kaasuu sameysanaya maanta oo dhan muhiim maaha impulsive iyo correction iyo higher low waxaan inaad qaybtaa muhiim kuma laakiin waxa kuu muhiima inaad garan karayso suuqiyo aad qeexi karayso uusan qofna kaa shaki gelin karin example-kiisa runtii ugu fudud suuqan isagoo practical insha Allah si fiican baynu insha Allah ugu dul istaagi doonaa si fiican insha Allah waa isku arki doonaa qodobadan aynu hadda qeexayno oo balbalaarsan insha Allah isla arki doonaa okay aynu ka socono downtrend waa intii la kala rogay intii baynu ku sameynay afgambi aynu ku sameynay okay maxaa uu leeyahay wuxuu leeyahay isaguna laba shardi suuqu suu noqdo downtrend laba shardi baa laga baahan inuu sameysanayo halku kii hore higher low ka sameysanayay lower low iyo lower high macna suuqan inuu lower low sameysanayo lower low maxaa looga jeedaa lower low waxa looga jeedaa inuu suuqu san u kala hooseeyo lower high-na waa inuu nasasho ama bullbackiisu uusan ka kormarankii ka horreeyay uusan ka kormarin oo lower lowgaas uu sameysanayo waa lower low lower high lower low lower high lower low lower high iyo lower low suuqan wuxuu soo kala meesha ka saaray suuqii isaga ka horreeyay maxaad ku garanaysaa suuqii ka horreeyay meesha ka saaray waxaad ku garanaysaa inuu suuqii isaga ka horreeyay meesha ka saaray wuxuu soo jibiyay last higher lowgii u dambeeyay oo suuq uptrend-ka ka horreeyay buu meesha ka saaray
intaa haddaad hesho suuqaagaas waxaad xaqiijisay directionkiisa ama dhanka uu jeedo simbly si yaroo fudud baad kusoo saari karaysaa. okay, tusaalihiisa aynu islaagna isagana tusaalihiisu simbly waa kana. waxa uu la mid yahay waa suuqii hore oo runtii dhanka kale lagaga yimiyo. waa lower low iyo lower high buu samaysanayaa. wuxuu meesha kasoo saaray halkan oo uu soo jabiyo suuqii ka horeeyey. kadibna suuqani directionkiisu waa down trend. maadaama uu down trend yahay sell baynu insha allah uga faa'iidaysan doonaa. okay, su-aashu waxay tahay maxaan suuqa inagu u doonaynaa down trendka amase maxaa up trend? macnaa muhiimadan inugu jirtaa maxay tahay? muhiimadan inugu jirtaa waxa ay tahay suuqan hadda down trendka marka aynu soo xaqiijinayno inuu soo xaqiijino janiskiisa koobaad inta dambe oo dhan waa meesha aynu kasoo faa'iidaysanayne waxaa lagaaga baahan yahay dee inaad selka ka faa'iidaysato. halka aad bayga aad raaci lahayd aad bayga ku khatalmi lahayd selkaynu isticmaalna. sababtoo ah waxaad arkaysaa mar kasta waxa suuqan intan uu soo socdo dhan candleliska selliskaaba u badan oo candleliska selleriskaaba ka fara badan kuwa buyerska. sababtoo ah buyerskani waa bullback ama waa correction, laakiin kani waa impulsive wuu socod oo dhaqaaq saxo soconaya weeyaan. marka janiskan faraha badan ee selleriskan faraha badan baynu inagu doonaa inaynu raacno halkii aynu suuqa kasoo horjeedsan lahayn inuu bayga raaci lahayn. markuu up trendka yahayna dee baygaa fara badan ee baygaynu ka faa'iidaysanayna halkii aynu 5 midh ama 2 midh ama 3 midh selka aynu ku logo ilayn. marka waa muhiim inaad garanayso suuqa up trendka siduu u dhismaa, suuqa down trendkina siduu u dhismaa inaad garanayso aad bay runtii ay muhiim u tahay. okay, bal waxaynu isleegi doonaa insha allah isleegi doonaa isagoo ah practical baynu insha allah isleegi doonaa suuqaynu toos insha allah u gudageli doonaa si aynu iskula aragno inaynu ku sameyno dhowr lacagood practical insha allah. okay, platformkeeni aynu soo kicisanay. platformkan aynu soo furanay waa IQ optionkii waa isla accountkeeni aynu isticmaali doonay insha allah. coursekeena accountkan baynu si fiican ugu isticmaali doonaa insha allah. okay, suuqan hadda waa suuq real ah. waxaan doonayaa inaan arko suuq down trend. marka aynu leenahay higher high iyo higher low aynu kala qeexaynaa. maxaynu nidhi suuqa down trendka wuxuu down trend noqdaa marka uu sameysanayo lower low soo kalena suuqii ka horeeyay uu meesha ka saaray. hadda tusaale suuqan u fiirso. suuqan waa up trend, waa higher high higher low buu sameysanayaa. muddo badan buu cirka iskaga socday. suuqan cirka u socdo cirka kamuu soo dhicin meel buu ka yimi. suuqan goormuus bilowday? suuqan wuxuu bilowday maalinka uu suuqii ka horeeyay meesha ka saaray, because suuqan suuq baa ka horeyn jiray oo down trend ahaa uu meeshan mari jiray. maadaama suuqii ka horeeyay uu higher lower highgiisii jabiyey intii ka dambeysay oo dhan buy buu ahaa. fursadahan bayga baa la doonayay ka faa'iidaysa, kan baa la doonayay ka faa'iidaysa, kan yar iska ignore garee, haddana baygan dheer, haddana kan iska ignore garee 3 midh, haddana kan ka faa'iidayso, intan iska ignore garee. meesha la doonayay inaad lacag ka samayso waa impulsifiyadan dhaqaaqaya, waa meesha lacagta lagu qaybinayo. sideedaba suuqa waxaa la yiraahdaa waxaa jira wax accumulation iyo distribution phase loo yaqaan. marna lacagta waa la ururiyaa, marna lacagta waa la qaybiyaa. meesha lacagta lagu ururinayo ha isku gelin, ka joog. meesha lacagta lagu qaybinayana ka qayb gal, because sirta ugu weyn ee suuqa ku jirta waa intaas. inta laga doonayo inaad barataana waa intaas. hadda u fiirso, hadda suuqi muxuu ku soo kala wareegay? meeshan hadda suuqi waa soo kala wareegay. up trend buu ahaa, high low higher low higher high higher low higher high higher low higher high baa laga doonayay, ma sameyn. muxuu sameeyay? waa soo kala wareego meeshan buu soo jabiyay. maadaama meeshan soo jabiyay maxaa bilowday? dee suuqii lacagtii hadda sel baa loo qaybinaya. candleskan selka u yaacayaad ka garanaysaa. bale kuwani rafashay ku tegayaan, sel baa loo soo cararaya, rafashay ku tegayaan, sel baa loo soo yaacaya. sidaas runtii uu suuq ilaa maanta ku soconaya. marka dhankan suuqu u jeeda ka faa'iidayso. hadda kan u fiirso, hadda kan maxaa ii muuqda? hadda kani waa bullback. meeshan hadda waxaa ku jira kani waa bullback. hadda kan ma odhan karaa waa down trend, waa minor down trend. markaad maqasho waa kan oo kale, sababtoo ah meeshan waxaa ku jira kani waa impulsive ma aha. hadduu isagu impulsive correction noqon lahaa oo meelaha laga soo kala jebin lahaa is okay, laakiin hadda kan oo dhan baa dhaqaaqa. maadaama kan dhaqaaqay waxa oo dhan waa bullback, waa minor trend waxa loo yaqaan. goormuu si sax u jebinaya? markuu halka hoos maro ayuu si sax u jebin doonaa. bal lacag kale aan soo qabsado. every bear kasta, every lacag kasta, meel kasta oo aad tagto, trend kasta oo aad aragto, forex IQ option meesha doonto joog, crypto waa sida trendiga uu shaqeeyo, ma aha trendiga IQ option ku soo shaqeeyo. trend kasta waa si uu shaqeeyo. sirtana runtii qofka fahma wuxuu ka fiican yahay dad badan runtii suuqan ku wareeraya. okay, waana technique fudud oo baran karaysa runtii, ma aha wax sawsi adag. hadda suuqan waa down trend, qofna igulama murmi karaysa. why? because suuqani wuxuu meesha ka soo saaray trendigii ka horeeyay oo kan ahaa muxuu samaystay low lower high lower low lower high
lower low lower high muxuu wadaa weli lower low lower high lower low high waa jebiyey maadaama halkaas hadda jebisay trendigu markuu bartaa kusoo noqdo waa meesha aan trendka ka qaadanayno waan istiraatiijiyadina dhanbe intay ku dhisan tahay trendigu markuu kale ogo trendka hadda anigu waan qaadan lahaa waan ka faa'iidaysan lahaa lacagna waan ka samayn lahaa haddii aan runtii chance u haysto oo aan macna trendkaas markii uu samaysmay arki lahaa waan u faa'iidaysanaya sababtoo adde waxaan arkayaa confirmation saxan meesha ka dhex arkaya bay ka tahay confirmation saxan ka dhex arkaya marka trendiga suuqa si uu kuugu fududaado isku day inaad ku celcelin samayso mar kasta oo aad ku celceliso waa mar kasta oo ay wax ku sii fududaanayaan maxaa lagaaga baahan yahay kaliya laga doonayaa wax lagaaga baahan yahay waxa isku weyniin maxaa aynu suuqa uptrendka laba rulkeeg waa inuu higher high sameysanayo kala sareeyo oo kana impulsive lada kan ka soo horjeedana correction yahay impulsive correction impulsive soo kalena suuqii ka horeeyay uu meesha ka saaro bulbaagiisii jabiyay inta ka tay suuqa down trendkina waa inuu lower low sameysanayo oo hoos u socdo suuqii ka horeeyayna uu meesha ka saaray inta hadaad ka hesho suuqaagaas cidna kugala murmayso inuu direction kaas uu u socdo ama inuu suuqaagaasi down trend iyo up trend uu yahay haddii inta aad garato waxa ay ka caawinaysaa inaad hadhow toole istiraatiijiyadeena iyo sida aynu trade-ka u qaadanayno si yar oo fudud runtii aad ula qabsan doonto intayna casharka ku xigi doona isla arki doona insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.